habeen wanaagsan iyo galwareed Muqdisho waa ay gilgilatay maanta madaxweyne Farmaajo oo talisa gaashaandhigga Soomaaliya iyo wasaaradda beeraha tagay maanta Roble oo ku fashilmay inuu xilal ka qaado odawaa Cumar Filish iyo taliyihii geesiga ahaa ee fashiliyay boobka Roble Fahad Yaasiin oo argudasho ku bilaabay ra'iisul wasaaraha doorashadana waa la bilaabayaa si dadar leh oo shirka Muqdisho ayaa la qabanayaa warsheer gareeya wararkan xasaasiga ah ee bulshada gaarsiiya macluumaadkan muuqaalkan idinkoo like iyo share na dhahaya si aan u faahino xogta xaqiiqda ah waa hagaag aynu ku bilawnee Muqdisho maanta way gilgilatay ciidamo ayaa xiray wadooyinka waaweyn ee caasimadda madaxweyne Farmaajo ayaa booqasho sir ah oo aan la ogeyn ku tagay maanta wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya halkaas waxa uu kula kulmay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan sida gorgor iyo sidoo kale ciidamo kale oo ka mid ah taliska xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu saraakiishii ula kulmay kala hadlay difaaca dalkan Soomaaliya iyo inay xaqiijiyaan amniga guud ee dalka madaxweyne Farmaajo ayaa ku dhiirigeliyay saraakiishii ula kulmay badbaadada dalkan ay ku hayaan iyo sida ay cadawga u hortaagan yihiin dowladnimada Soomaaliya inay dumiyaan safarkan wuxuu ahaa ama qorshahan wuxuu ahaa mid aan la ogeyn oo sir ah oo laga qariyay warbaahinta maadaama ay tahay sir qaran safarka madaxweynaha uu ku tagay wasaaradda gaashaandhigga saraakiil ka tirsan taliska xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa galwareed u xaqiijiyay in madaxweyne Farmaajo uu tagay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkaasna uu kula kulmay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga gaar ahaan saraakiil ka tirsan ciidamada badda gorgor gaashaan iyo sidoo kale ciidamo kale oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed isagoona dhiirigelin iyo bogaadin u jeediyay shaqada qaranka inay sii wadaana ku dhiirigeliyay sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa booqasho ku tagay wasaaradda beeraha Soomaaliya isaga iyo mas'uuliyiin kale ayaa xariga ka jaray dib u dhis ballaaran oo lagu sameeyay wasaaraddaasi tan ayaa ahayd arrin si weyn loo wada ogaa balse waa la qariyay safarka madaxweyne Farmaajo ee wasaaradda gaashaandhigga iyo booqashada uu ku tagay maanta oo wadooyinka caasimadda saacado kooban isaga loo xayiray arrintan ayaa mar kale muujinaysa in madaxweyne Farmaajo uu wado galaangalka iyo sidoo kale inuu dhiirigeliyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale wasaaradda beeraha xarigjirka lagu sameeyay madaxweynaha waxaa kala qayb galay wufuud heer caalami ah oo ka mid yahay igad xubno ka socday iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo xukuumadda federaalka Soomaaliya ka tirsan sidoo kale waxaa hadda soo gabagaboomay oo maqribkan ku dhow soo dhamaaday shir u dhaxeeyay Roble iyo golihiisa wasiirada shirkan ayaa lagu fashiliyay qorshihii Roble xilka uga qaadi lahaa taliye odawaa iyo taliyihii geesiga ahaa ee dhawaan fashiliyay boobka Roble uu ku hayo dhulka ciidamada badda Soomaaliyeed ee Cabdixamiid Dirir kulankii golaha wasiirada oo isha lagu wada haya ayaan ka soo bixin natiijadii la sugayay oo ahayd tallaabadii Roble uu qaadi lahaa ee xilka qaadista duqa Muqdisho taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyaha ciidamada badda Soomaaliya hadda way soo dhamaatay dhammaanba arrimihii la isku hayay siyaasadda Soomaaliyana meel kulul ayay maraysaa sidoo kale Roble ayaa sida xogaha ay tilmaamayaan waxa uu ku dhacay dabin ay u dhigaan villa Soomaaliya Fahad Yaasiin ayaa markan bilaabay argudasho karana Roble maadaama looga bilo ka hor cunaqabateyn safar iyo sidoo kale tallaabooyin dhowr oo ka qaaday taliska NISA oo ninkan uu agaasime ka ahaa Roble hadda xaaladda ayaa ku cakiran sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa suuragal ah tahay inuu wajaho eedeymo culus oo la xiriira kiiska boobka ah ee lagu soo eedeeyay iyo sidoo kale in uu wajihi karo xabsi maadaama hadda ay soconayso qabanqaabada iyo qorshaha ah in dacwado loo gudbiyo maxkamadaha kala duwan ee dalkan si baaritaan loogu sameeyo waxa karona kiiska lagu soo eedeeyay Roble ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo si guud ciidanka amniga waxa ay fulinayaan amarka madaxweyne Farmaajo diyaar ay u yihiin qaadashada go'aan walba madaxweynaha u soo gudbiyo si loo xaqiijiyo dowladnimada Soomaaliya sidoo kale Roble ayaa sida xogaha ay tilmaamayaan waxa hadda heesa siyaasad waali ah iyo jahwareer siyaasadeed oo uga imaanaya dhanka villa Soomaaliya isku day walba oo ku doonayay in xilalka uu qaado wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya duqa magaalada Muqdisho taliyaha ciidanka xoogga iyo saraakiil kale ayaa gabi ahaantoodba fashilmay shirkii golaha wasiirada oo maqribnimada ku dhow soo dhamaadayna kama soo bixin wax natiijo ah oo la filayay iyo go'aankii weynaa ee Roble isha lagu wada hayay laga sugayay xaalku uu cakiran yahay doorashooyinka Soomaaliya way si soconayaan Roble waxay xogaa tilmaamayaan in laga taqallusi rabo isla markaana xilka qaadis lagu sameynayo maadaama eedeymo kala duwan oo weyn uu wajahayo xaalka caasimadda muddo kooban ay jahwareer gashay saacado kooban ayaa Farmaajo loo xiray isagoo booqasho qarsoodiya ku tagay wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo kale mid la ogaa oo ku tagay wasaaradda beeraha Soomaaliya
haddaba daawade fikirkaaga iyo waxa ay kula tahay ku raab qaybta commentiga tan iyo kulan dambe nabadgelyo.